sidee shaaha kulul u saameeyaa tubadan u dhaxaysa dhuunta iyo caloosha ee loo yaqaan esophagus-ka sa arkaysaan qaybna ugu noqon karaa kansarka ku dhaca tubadan ama esophageal cancer wax loo yaqaano weli ma isku aragtay calaamadahan ku sharxi doona oo hordhac u ah kansarkan haddii aad tahay dadka aad ku jecel cabista shaaha kulul waxaa suurtagal ah inaad isku aragto calaamadahan mar walbo balse wacyigelinta bulshadeena oo aad u yar darteed aadan ka warqabin calaamadahan digniinta muujinayo ka hor xaaladda inta aysan faraha ka bixin waxaan kula wadaagi doonaa cilmibaarisada caafimaadka waxa ay ka qoreen arrinkan iyo tallaabooyinka ay tahay inaan qaado insha allahu badanaa bulshadeena waxaa caadi iyo dhaqan u ah cabista shaah kulul si maalinle ah dadka qaar waxaa dhacda in maalintii yani shaah fara badan oo tarmuus shaah wax lamid uu cabo ama qofku waxaa laga yaabaa shaqay wax inuu haayo oo yani tarmuus shaah agtiisa soo dhigto maanta dhan uu shubanayo shaahan uu yahay mid aad u kulul marka insha allah waa sharxi doonaa xiriirka ka dhexeeya kansar ku dhaca tubadan iyo shaaha kulul iyo waxyaabaha caawinayo shaaha si caadi uma sababo laakiin waa uu fududeeyaa khataraha haddii waxyaabo qaar ay soo raacaan oo aan sharxi doono insha allahu cashirkan ayaa ku faahfaahin doonaa hadduu ilaah yidhaahdo xaaladan sida ay ku timaado dadku u nugul calaamadaha hordhaca ah oo qofku isku arkaayo tallaabooyinka ay tahay inuu qaada iyo wacyigelin muhiim uu ku aadan xaaladan faa'iidaysi wacan la wadaaga asxaabtaada si kula faa'iidaystaan magacaygu waa Dr. Cabdirasaaq soo dhawaada marka cabista shaaha kulul waa mid ka mid ah waxyaabaha bulshadeena yani sida aadka u isticmaalaan ayagoo ka raadinaya energy ama tamar iyo wax la mid ah balse haddii qofku uu joogteeyo cabista shaah fara badan يعني maalintii oo sida arkaysaan 700 oo mililitr oo loola jeedo 4 koob iyo wixii ka badan waxayna ku xiran tahay koobka aad isticmaalaysa ama koobka shaaha ku cabaysa hadii maalin kasta aad cabto macnaha 700 oo mililitr ama ml si kala daawdhigna hadii maalin kasta aad cabto si joogto ah aad cabto waxay ku nugleynaysaa khatarta imaanshaha kansarkan ku dhaca tubadan yani tubadan u dhaxaysa caloosha iyo dhuunta u dhaxaysa loo yaqaan esophagus-ka marka shaaha kaligiis aad cabto kuma nugleynayo balse sida arkaysaan waa haddii ay soo raacaan yani xaaladahan tusaale qofka shaah kulul ayuu aad u cabaa sidoo kale sigaar u cabaa ama shaah kulul ayuu aad u cabaa oo 700 mililitr iyo wax ka badan ah ama khamri wax la mid ayuu la cabaa ama yani shaah kulul ayuu aad u cabaa wuxuu qabaa xanuunkan gaaska ama nooc laabjeex loo yaqaano aashtaas waxay dhaawacaysaa ama xalxalinaysaa yani tubadan dheer qaybteeda gudaha marka adigu mataqaanaa gaas xun qabo haddii shaah kulul cabistiisana aad badsato wuxuu sii caawinayaa inuu xaaladda kasii daro oo dhaawaci yani kasii daro taasoo keenaysa unugyada tubadan inay dhaawacmaan ugu dambeynna sababayso in yani ay ka baxaan controolka qaybna ka qaadan karta yani imaanshaha kansarkan ku dhaca tubadan ama esophageal cancer wax loo yaqaano marka haddii aad tahay dadka jecel cabista shaaha kulul waxaa wanaagsan in yani aad yaraysato oo maalintii 1 koob ama 2 koob yani qofku ay ka badan tahay sida caadiga laakiin tarmuusdan qofku inuu cabo ama 5 koob iyo wixii ka badan inuu cabo khatarta ay u nugleynayso sidoo kale gaas iyo wax la mid ah qabta iska daawee haddii sigaar iyo wax la mid ama khamri iyo wax la mid ah cabtan iska jooji cuntadaadan mar walba iska sax si oo gaas iyo wax la mid ah uusan kugu kicin marka haddii qofka arrinkan iska xallin waayo waxaa jira calaamado uu isku arki doono sida tusaale oo kale يعني حبد حنون حبدكنا حنون أما جوشي وحلا مدة كدرينت أما حنون كدرينت dadka qaar boqolkiiba 20 waa laakiin inay dareemaan laqista cuntada inay dhibto dadka qaar cuntada cuneen ayaa gadaal ugu soo laabata ama yani matagila labi wax lamid qof isku arkaa dadka qaar miisaankooda ayaa si degdeg u dhaca markuu kansarkan ku yimaado dadka qaar waxa u soo raaca qunfac iyo xabeeb oo kala dhuunta macnaha codka inuu xirmaayo oo kala yani ayaa u soo raacdo dadka qaar saxaradooda ayaa madoobaata maadaama yani kansar markuu ku yimaado tubadii dhaawac gaar darteed dhiig bax oo imaan karo saxarada sidaas ay ma aragtay saxar madow ku noqonaysa duu dhiig hoos u horo oo kale marka sidee lagu ogaadaa arrinkan haddii aad isku aragtay calaamadii aan soo sheegnay booqo xarun caafimaad si baaritaan lagu sameeyo qofka tubadan kaamirada ayaa la geliyaa ama endoscopy waxa loo yaqaan sa arkaysaan yani marka tubada ayaa cad laga soo jaraa si loo fiiriyo haddii mataqaanaa kansar oo jiro iyo haddii xaaladda kansar ay ku dhowdahay iyo haddii caadi ay tahay marka waxaa wanaagsan qofka inuu iska control cabista shaah aadka u kulul inuu aad iskaga control ayaa fiican fariintan la wadaag bulshada maadaama inta badan
wacyigelinta bulshadana aad u yar tahay qofka laga yaabo arkaan fududeysto kadibna xaaladan ay ku keento oo ah xaalad aad u halis badan marka waxaan rajeynayaa inay bulshada aad uga taxadiraan insha Allah. Assalaamu calaykum.